بسم illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu muuqaalkeena maanta waxaan ku baran doonaa qaabka loo sameeyo flyer design inagoo baran doona oo isku dayi doona kan mid la mid a inaynu qaabka loo sameeyo aynu baranno si aan u baranno waxaan soo furan doonaa photoshopka markaan soo furanno waxaan ka dooran doonaa qaybta documentiga cusub qaybta markaa waxaynu documentigeena ula bixi doonaa waxaan leenahay flyer design aynu magacaan ula bixi doonaa qaybta markaynu soo dhamayno waxaan u iman doonaa qaybta dimensionka waxaan ugu horeysiin doonaa qaybta widthska waxaan ka dooran doonaa 2555 ayaan dooran doonaa waxaan u iman doonaa markaa qaybtana mar walba inay pixel ahaan ku doorantaa intaa markaan ka nimaadno waxaan leenahay qaybta heightkanu iman doonaa heightkana waxaan leenahay waxaan siin doonaa 3580 ayaad dooranaysaa qaybtana waxaan ka dooran doonaa qaybtana waxaynu u deysan doonaa qaybta waxa weeye 300 oo dpi ayaynu deysan doonaa intaa markaynu ka nimaadno waxaan leenahay aan ku dhufan doonaa qaybta ay ku qoran tahay create markaynu ku dhufanno waxaa inoo soo baxaya documentiga cusbaa aynu samaysanay waxaynu u iman doonaa inaynu marka ugu horeyso bal aynu soo xaraadhno oo caleemahan soo sameyno sawirkana soo gelin markaaseen taa u sameyno waxaan tegi doonaa bin toolkii markaan tagno qaybta ugu sareysaa wuxuu leeyahay laba qaybood waa path iyo shape markaa shape aad soo dooran doontaa shape markaad soo dooratid waxaad ku dhufan doontaa qaybtaasaad click siin doontaa halkaa weliba pointerka ah qaybtaa markaan click siino ilaa intaas ayaan durkin doonaa click ayaan ku dhufan doonaa dib baynu celin doonaa halkaasaan dib ugu celin doonaa halkaana waan isaga xidhi doonaa intaa markaan saa usoo sameyno waxaan tegi doonaa isla bin toolkii inagoo joognaban waxaan ka dooran doonaa curvature ayaad ku dooran doontaa curvature markaad ka dooratid waad ku dhufan doontaa qaybtana waad ku dhufan doontaa laba pointer ayaynu u sameynay pointerkan hoose ayaynu soo jiidi doonaa kaa sarena isagana saasaynu soo jiidi markaa calaamadda xoodinta baa inoo sameysan doontaa ama shapeka xoodan intaa markaan samaysano waxaa leenahay control plus t shapekaasn intaan kali ku dhufanno baan control plus t baan leenahay isagaynu xaggan ayaan u durkinayna intaa markaan u durkino waxaa leenahay control plus j xagganaynu isaga waxaan leenahay control plus j deetana shape kale inoo samaysmaya xaggan aan u durkinaya right click baan leeyahay right click intaana siin control plus t ayaan ku dhufan doonaa right click baan leeyahay marka right click markaad siisid waxaad dooran doontaa halka ugu hooseysa ku qoran tahay flip horizontal sidoo kale waxaad dooran doontaa flip vertical marka saasuu kaga yeelaya oo qaabkaasu noqonaya in yar baan weynaysiinayaa kanna hoos baan usoo dhigi doonaa marka labadaas xaggaasaan isaga beegi doonaa labada carab marka qaab noocaasa ayuu igu samaysmaya okay qaabkaas waa qaabkaan u baahnaa waxaan leenahay haddaynu isku eegno qaabkaasu markaa inugu samaysmaya waxaan leenahay markaa bin toolkii baan dib ugu noqon doonaa bin toolkii markaan dib ugu noqono qaybta sareen dooran doonaa halkaas ayaan kili ku dhufan doonaa qaybtaana kiliga ayaan ku dhufan doonaa saasaan u xoodi doonaa saa markaan u xoodina qaybtaan u iman doonaa isagana qaabkaasaan markaa u xoodi doonaa hoos baad u sacan halkana click baad leedahay halkana click baad leedahay afkaasaad markaa isaga soo xidhaysaa kaa markaad iskaga soo xidhid midabkaad halkan ka bedelaysaa midabka caddaan baad ka dhigaysaa caddaan markaad ka dhigtid caddaankii halkan waa ugu sarreeya ugu hooseysay ka ugu hooseeya ka ku xiga ka dhig halka kusii daa marka saasuu markaa inugu samaysan yahay qaybtaa markaan saa usoo sameyno waxaa leenahay qaybta saren tegi doonaa qaybta sare waxaan soo gashan doonaa sawirkii waxaan file baan tegey bracelinker baad ka doortay sawirkii ayaan halkaa kasoo doortay sawirku waa yaryahay sawirkaan soo weynaysiisin doonaa afarta angal waa ka leekeysin doonaa kor baan u qaadi waxa weye isagana draagin baan le waa soo jiidayaa shapekii backgroundkuun baan ka saraysiin doonaa inta kale oo dhan u ka hoos maray marka intaa markaan leeyahay kor baan u yar qaadi ilaa intaysan gaadhsiin mar baan isku wada hilaad gareen in yar baan hoosta ugu soo dhigay intaasaan u deynayaa marka intaa markaan u dayo kanaa midabka kasoo bedelayaa midabkiisa waxaan ka dhigi doonaa orange waayahay midabkiisaan u dayn doonaa halkaa waxaa inooga muuqda oo ku jira midabkaasaa ku jira waxa weeye stroga midowgaan kasoo yar saari doonaa xagganaan tegi doonaa xagga markaan tago halkaas waxaan ka dhigi doonaa eber kana sidoo kale isagana strog baa ku jira laga yaabaa inaan adiga kaa gelin oo default ahaan adiga uu ku yahay strogiisaa markaan uga soo wada saaray waxa weeyaan qaabkaasuu u muuqda
intaa markaan sameeyo waxaan soo samayn doonaa footerkii hoose. Footerkii waxaan tegi doonaa rectangle-kan aan toos usoo gashan doonaa. Rectangle-kan ayaan halkan ka samaysan doonaa. Rectangle-kan markaan ka samaysto midabka default ahaan buu usoo qabsanayaa. hadaana midabka aanu ku dooranayna aad midabkaa soo dooranaysidna waxa weye fiilkaa tegeysaa qaybtaasaad kasii tegeysaa midabku waa kaa weeye intaad qaybtaa tegtid bad waxaad kasii dooran doontaa qaybta hoose marka okay waad siin doontaa intaa marka saa u sameyno waxaan tegi doonaa qaybtii waxa weeyaan configure ayaan ku dhufan doonaa qaybta ay ku qoran tahay configure bin tool qaybtaana click baan leeyahay qaybtaana click baan leeyahay hoos baan markaa qaybtan usoo dhigi bisba waaba intaaba taas ayaan saa usoo sameyn doonaa weliba kor baan xoogaa aanu yar qaadi intaasaan u deyn doonaa marka qaybtaana kor yar baan u qaadi sida halkan inooga muuqata intaa markaan saa usoo sameeyo isagan waxaan leeyahay control plus j isagan waxa weye copy ka sameysanaya layeriskii baan tegayaa layeriskii markaan tago midabkan kaas weliba kanan hoosaan midabka kusoo bedeli midabkan waxaan dooranayaa eyedropperkii kaa saan midabkiisii ka dhigi doonaa marka isagan waxaan leeyahay control plus t isagan in yar kasoo muujinaya caaradiisa sida halkan inooga muuqata marka waka halkaa inooga soo muuqday halkaa inooga soo muuqday isagaa markaa saasaan usoo muujinaya very simple intaa markaan saa u sameeyo waxaan kusoo qoran doonaa dokumentiyadii iyo qaybtaas sare waxaan ka samaysan doonaa rectangle-kana ka samaysan doonaa oo rounded ah qaybtaas sare ayaad saa uga samayn doontaa waxaad ka dhigi doontaa rounded laba sifaba waad u samayn kartaa qaybtaa waxa weeyaan angalkaas aysan u jiidi karnaa rounded buu noo samaynayaa ama qaybtan hadday kuu soo saarantahay property-ga ayaad ama appearance-ga ayaad ka bedeli doontaa haddii aad appearance-gana ka weydidna waxaad ka dooran doontaa waxaad kasoo helaysaa qaybtan ayaad ka baari doontaa wata hadda property-gu inoo dooran yahay property-gaasaad tagta soo saaraysaa isaga markaa kuu soo saari doona okay haddana way iga qarsooma haddaan dib ugu celiyo property-ga waa kan markaas halkaa aad ka yareyn kartaa kana badin kartaa labadaba marka kaasaan kor yar u qaadi waxa weeyaan intaas midabkun baan kasoo bedeli midabkana waxaan ka dhigi doonaa midabka orange-ga wuxuu leeyahay stroke buu leeyahay strogana waa ka waxaan ka dhigi doonaa eber waayahay intaasaan u dayn doonaa marka intaasa waxaan kusoo qoran doonaa discount 50% okay halkan waxaan ku qoran doonaa 50% ayaan saaran doonaa waayahay 50% markaan idhaahdo halkan waxaan ka dhigi doonaa farta rounded baan ka dhigi doonaa waayahay roundedkii baan ka dhigi doonaa fartana waxoogaa waan yaryarayn boolla waa ka dhigi okay hoos baan usoo dhigi marka waxaan filayaa inay roundedkii fartaasi tahay mise waa impact weeyaan impact ayaan farta ka dooran impact markaan ka dooran fartuuba kaa xoogaa baan yarayn midabkeedana waxaan ka dhigi cadaan okay waxaan u iman doonaa haddana qaybtan waxaan ka dhigi doonaa ku qoran doonaa disco waayahay farta cabislog baan saaran doonaa fartana waxaan ka dhigi doonaa markaa areal waxaan ka dhigi doonaa roundedkii farta doontaad ka dhigan kartaa far muuqanaysa unbad aad xusaysaa waayahay isokay intaasaan u dayni doonaa marka waxa weeye waa ka qaabkaas iskugu midka u noqotay okay qaybtaasna saasay nagu dhan tahay waxaan soo gelin doonaa branki ama loogadii file baan tegi doonaa brace link baad ka dooran doontaa brace link markaad ku dooratid loogadii baad soo gashan doontaa loogadii halkaasi waxay leedahay backgroundkaad markaa kasoo jari doontaa eraser baad degi doontaa magic eraser tube baad aad kaga jari doontaa waayahay intaasaan kor u qaadi halkaasaan dhigi intaas yaryar baan kasii saari oo magic eraser tigi ma dib ugu noqon qaybtaana waxa weeye waan ka saari qaybtaana waan ka saaraya waayahay saasay uga baxday
waxaa leeyahay control plus t koonkaasaan dhigi doono saasaan u yarayn doono watalkaa inooga muuqanaysa way si fiican lagu arko waxaan u samayn doonaa double code right click baan leeyahay waxaan ka dooran doonaa blending option isla loogadii weeyaan loogadii waxaan u samayn doonaa shadow yaroo cad si fiican ugu muuqato halkan haddaan baan ka dhigi doonaa shadowga okay siiskan xoogaa ma soo yareynay intaasaan leeyahay okay intaa markaan sameeyo waxaan u iman doonaa qaybihii kale halkan waxaan kusoo xusi doonaa markaa travel iyo waxa weeye our servicekan qoraalkaas iyo waxa weeye QR koodka halkan marka waxaan leeyahay wax ka samaysan doonaa waxaan leeyahay travel weeyahay midabkana waxaan ka dhigi doonaa midabkan fardana waxaan ka dooran doonaa okay waan siin doonaa fartana waxaan ka dooran doonaa impact baan ka dooran doonaa waan soo weynaysiin doonaa sida halkan inooga muuqata caps loogana waan ka qaadi doonaa okay waayahay okay travel intaasaan u dayn doonaa sida halkan inooga muuqata intaasaan travel u dayn doonaa halkan waxaan ka samayn doonaa markaa waayahay waxaan ka samayn doonaa rectangle-kanna explore dubo waayahay waan ku baran doonaa isagana midabkiisa waxaan ka dhigi doonaa isla kaan u ekaysiin doonaa waayahay rectangle-ka midabkiisa waayahay rectangle-ka midabkiisa ayaa waxaan kasoo dhigan doonaa waxaan ku baran doonaa markaa fartana waxaan ka dhigi doonaa rounded waxaan leenahay explore dubo way farta waa yaryaraynayaa farta markaan yaryareeyo waxaan ku qoran doonaa allah mustacaan kariim explore the wall baan leeyahay titana farta waxaan ka dhigi doonaa caddaan baan ka dhigi caddaan markaan ka dhigo xagganaan dulgeyn waxaan leeyahay capitals loogaasaan furan doonaa caps loogaasaan ka waaweynaysiin doonaa waxa weeye isagana halkaasaan qaadsiin doonaa si lamid ah sida halkan inooga muuqata weliba ay fartu ay weliba tahay rounded ay tahay rounded k ay tahay saasaad marka okay baad siin doontaa marka qaabkaasu aynu nugu samayn doonaa kana xoogaa waynu yarayn doonaa si ay isku leekaadaan labada okay intaa markayn sameyno waxaynu iman doonaa qoraalkii inaynu ku darsanno halkan waxaan leenahay waayahay our surface okay fartana waxaan ka dhigi doonaa aerial hadiya ayaan dooran doonaa wayna weynaysiisan doonaa si lamid ah qaybta halka inooga muuqata waayahay farta intaasaynu daysan doonaa waxaan halka ka samayn doonaa markaa qaabka tiida markaan ku dhufto markaan taybka aan ku dhufto saasaan aan u samayn doonaa qoraal baa markaa isbari doona qoraalkaasaan soo yaryaraynaya qoraalka farta waaweyn baan ka qaadi doonaa waxaan dooran doonaa prograph waxaan kasii dooran doonaa qaybta tana fartaan yaryaraysan doonaa waxaa leeyahay control plus v ayaad leedahay marka qaabkaasu markaa kugu samayn doonaa qoraalkii badnaa marka qaabkaasuu nagu sameeyey weliba qoraalkana waan sii yarayn si igu qaato markaa
oo aan halkaan space uga helo. Marka qoraalkiina qaabkaas uu inoogu soo galay oo qaabkaas aynu qorannay. Haddaan rabo inaan yaryareeyo, haddaan rabo inaan wax ka beddelo, qaybtan unbay wax ka beddeleysaa. Qoraalkiina saas ayaan u soo gelinay. Kaasaan kor qaadi, kana kor bayno. Waxoogaa u qaadayno. Halkana waxaan leenahay waxaan samaysan doonaa rectangle. Rectangle waxaan leenahay hareeraha ka soo xood. Saas ayaan u durkin doonaa. Sida halkan inooga muuqata. Halkaas waxaan ku dul qoran doonaa markaa join us. Weeyay fartan caddaan baan ka dhigan doonaa maadaama isagu background uu yahay. Weeyay fartana caps lock baan samaysan doonaa xogaana waan soo roonroonaysiinaya. Weynta markaan saa u sameeyno waxaan soo gashan doonaa barcode-kii xaggan barcode-kan ayaan soo gelin doonaa. Waxaan leeyahay file baan tegi doonaa, brace linked baan leeyahay. Barcode-kan soo qaadan doonaa. Isagu aad buu weyn yahay waa soo yareyn doonaa marka. Halkaasaan dhigi doonaa. Barcode-ku waxaan samaysan doonaa background rectangle baan soo gelin doonaa yar. Ilaa inta rectangle-ka la ekaysiin doonaa midabkiisana caddaan baan ka dhigi doonaa rectangle. Weeyay rectangle-ka midabkiisa caddaan baan dooran. Labadana waa soo kala hormarinaya. Layerskii baan tegayaa waxaan leeyahay kan horeysi. Barcode-ka sarreeya. Weeyay halkaan waxaan ku qoran doonaa markaa content-gii baan ku qoran doonaa ama contact-gii lambaradii ee halkaa hoose aad ku qoran doonta. Lambaradana xogaa waad soo yar roonroonaysiinaysa. Fartiisana area ka soo deynaysa. Weeyay waa inta qaabkaas loo sameeyaa. Xagga hoose ayaad saa u dhigaysaa. Waxa weeye marka qaabkaas hadda uu inoogu samaysan yahay wax loo yaqaano flyer design si la mida kan. Markaa waxaad tegi doontaa saad u save gareysatid file baad tegi doontaa. Waxaad ka sii dooran doontaa export. Deetana export as baad leedahay. Ama save baad dooran kartaa labadaba kii kuu fudud. Deetana waxa weeyaan export baad leedahay. Markaas waxa weeye halkan aad ula bixi doontaa magacii. Deetana waxaad leedahay save baad leedahay. Save markaad siisid qaabkaasuu kugu save gareynaya. Marka qaabkaas loo sameeyaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh.